warbaahinta Turkiga iyo tan Jarmalka ayaa siyaabo kala duwan uga warbixiyay booqasho muran badan dhalisay oo madaxweynaha dalka Turkiga uu ku tagay Jimcihii shalay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Booqashadan ayaa la qorsheeyay dhowr bilood ka hor, gaar ahaan markii Erdogan uu ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee dhacday bishii May ee la soo dhaafay. Laakiin hadda waa la soo gaabiyay. Maxay tahay sababta? xisbiyada mucaaradka muxaafadka iyo ururada Yuhuudda ee ka dhisan Jarmalka ayaa horey u dalbaday in la joojiyo booqashada Erdogan ee Berlin, maadaama si weyn uu taageeray dagaalka iska caabinta ee Xamaas ay kula jirto Israa'iil inay gashay dambi dagaal. Toddobaad ka hor, madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay in sharcinimada dowladda Israa'iil uu shaki ku jiro, sababtoo la xiriira waxa uu yidhi gumaadka ay ka wado magaalada Gaza, isagoo markii dambe ku eedeeyay Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka inay si cad u taageerayaan xasuuqa Israa'iil ay ka wado magaalada Gaza. Erdogan ayaa sidoo kale inta uusan la kulmin hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay Jarmalku inuu Israa'iil ku taageerayo dagaalka ay ka wado Gaza, iyagoo raba in ay markaasi indhaha ka laabaan dambigii xasuuqii Naaziyiinta ee dhacay dagaalkii labaad ee dunida. Dhinaca kale, Erdogan ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan taageerada uu siiyey Xamaas oo iska caabin kula jira Yuhuudda, iyo waxa uu ku tilmaamay dhaqdhaqaaqa xoreynta ay ka wadaan magaalada Gaza. Hadalkan ayaa dhaliyay carab badan, taas oo soo gabagabaysay booqashada madaxweyne Erdogan uu ku tegay Jimcihii magaalada Berlin oo horey loo qorsheeyay inay qaadanayso 2 maalin. Erdogan ayaa mar shir jiraa'id si wada jir ay u qabteen isaga iyo hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz. waxa uu ka hor inta uusan wada hadal gaar ah la yeelan hogaamiyaha Jarmalka uu yiri dagaalka Israa'iil iyo Falastiin waa in aan lagu qiimayn maskax caadifaysan. Hadalka Erdogan ayaa taabtay dareen xasaasi ah oo la leeyahay waxa uu soo kicin karaa xasuuqii Holocaustiga ee Naaziga ee Yuhuudda lagu xasuuqay ee Jarmalka uu sameeyay. Scholz ayaan si toos ah uga jawaabin hadalka Erdogan, laakiin wuxuu ku celceliyay Jarmalku inuu taageerayo Israa'iil inay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan oo saxafi uu weydiiyay inuu aaminsan yahay mowqifkiisa uu ku taageeray Xamaas inay caqabad ku noqon karto Jarmalka inuu ka iibiyo dalkaasi 40 diyaaradood oo nooca dagaalka ee loo yaqaano Eurofighter Typhoon iyo sidoo kale iskaashiga u dhaxeeya wadamada NATO. Erdogan wuxuu ku jawaabay Turkiga waxa uu ka mid yahay dalalka ugu muhiimsan NATO, isagoo ku jira kaalinta 5. Hadalkiisa ayuu sii watay, wuxuu yidhi dalkaygu ma ahan mid caadi ah. Wuxuu tusaale u soo qaatay dhexdhexaadintii iyo wadahadaladii uu dhex dhigay Moscow iyo Kiev, taasoo ka dhabaysay in 30 milyan oo tan oo haruur ah loo qaado Yurub iyo Afrika iyadoo la sii marayo badda madow. Waxa uu tilmaamay in boqolaal qof lagu dilay dagaalka Ukraine, halka kumanaan Falastiiniyiin ah ay gacanta Israa'iil ay ku dhinteen, laguna burburiyay isbitaallo, goobo lagu cibaadaysto iyo kaniisado. Taasina ay dhibayso isaga hadduu yahay Muslim sida ay u dhibayso dadka Kristaanka ama madaxda Kristaanka. Erdogan ayaa yiri marka la eego diyaaradaha Eurofighter inuu Jarmalka kaligiisa haysto iyo in kale, Jarmalku ma yahay oo kaliya kan adduunka sameeya diyaaradahan dagaalka. Meelo badan oo adduunka ayaa laga heli karaa diyaaradahan, ayuu sii yiri Erdogan. Wuxuu intaa ku daray hadalkiisa, Turkigu hadda waxa uu noqday dalalka ugu horumarsan dhinaca diyaaradaha drowniska. Wuxuu yiri ha igu hanjabin wariyay arrintaas, su'aalaha aadna weydiinayso ha noqdaan kuwa damiir leh oo ay ka muuqato dadnimo si aan kugu jawaabo sidaas oo kale. Erdogan ayaa intii uu joogay Jarmalka waxa uu xaqiijiyay Israa'iil ilaa hadda in ay dishay 13,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan haween, carruur iyo waayeel, isla markaana ay burburisay wax kasta oo magaalada Gaza yaalay. Waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Erdogan uu tago Jarmalka muddo 4 sano ah, kadibna wadahadallo uu la yeesho ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz. waxa uu qorshuhu ahaa booqashada Erdogan ee Berlin inay qaadato 2 cisho, iyadoo ciyaar saaxiibtinimo oo kubadda cagta ay dhexmari lahayd labada xul waa Turkiga iyo Jarmalka, balse dowladda Jarmalka ayaa baajisay ciyaartaas iyadoo ka cabanaysa hadallada ka dhanka Israa'iil ee ka imaanaya Turkiga. Jarmalka waxaa ku sugan jaaliyadda ugu badan ee Turkiga ku nool dibadda, kuwaas oo gaaraya tiradooda ilaa 3 milyan oo qof oo ay ku jiraan 1.5 milyan oo codbixiyaal ah, kuwaas oo intooda badan taageersan madaxweyne Erdogan.